السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، لنتقي الله تبارك وتعالى، لنتقي الله عز وجل في السر والعلانية، ففي تقوى الله العزة والكرامة في الدارين، وفي عصيانه الذلة والمهانة والخسران المبين. أيها الإخوة، khudbadeennu waxay ku saabsan tahay oo wax ka sheegi doonaa haddii alla yidhaahdo waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosha bini aadamku ay ku jirto, waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu helo nabadgelyo, waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu helo istiqraar iyo deganaansho iyo sugnaan, waxyaabaha lagu helo, waxyaabaha loogu baahi badan yahay ee bini aadamka adduunku markuu joogo ugu baahi badan yahay waa nabadgelyo. shay ka qaalisan ma jiro bacda aliimaani billahi tabaaraka wa tacaala. caqiidada iimaanka ilaahay uu qofka siiyo raasamaalkiisa aakhara ah marka laga tago, qofka bini aadanka adduunka intuu joogo waxyaabaha uu ugu baahi badan yahay waa laba shay. labadaa shay haddii la helo calaa mustawa alusar wa calaa mustawa almujtamac wa calaa mustawa alxukuumaati walduwali walshucuub, labadaa qodob haddii la helo, dadkaasi waxay ku noolaan hayaan ay u badan tahay istiqraar, nabadgelyo, stability inay ku sugnaadaan baa suuragal ah. labada shay ee bini aadamku nabad iyo wanaag iyo isdhexgal iyo deganaansho inuu ku helo ugu muhiimsan waxa weeye in ammaano laga helo bulshadaas, oo bulshadu ay tahay bulsho ammaano leh. qodobka labaad, in bulshadaas cadaalad ay isku maamusho oo meeshaasi aynan jirin. haddii labadaa qodob meesha laga helo, nabadgelyo iyo istiqraar iyo sugnaansho ayaa la helaya, xaqiiqo wey. haddii labadaa qodob la waayo ama midkood la waayo, meesha waxaa imanaya ee bedelaya waa dhibaato iyo shaqaaqo iyo mushkilado iyo qax iyo kala carar bay natiijadu ku dambaynaysa. xaqiiqo dhabo wey. adduunka maanta crisis-ka iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira, ama ha ahaato meel hoose, heer family ha ahaato, ama ha noqoto yani dad saaxiibo oo ishaya ha noqoto, ama ha noqoto heer shucuub iyo umam iyo dowladeed, ishaysashada iyo buuqa iyo conflictiga maanta adduunka ka jira waxaa sabab u ah iyo cadaalad darro. haddii cadaalad la waayo, istiqraar iyo nabad la heli maayo, way isku xidhan yihiin. ولا شك في ذلك، وسنة الله في خلقه. ولذلك أبو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وحليه هي وأنا تلمانان وملنا يا مرر بدن هدي إلهي تبارك وتعالى أمداس هدي لقد حلو بالشدة إيه حكومات كعدالة هدي لقى حلو. وحليه ابن تيمية رحمة الله عليه وعلماء وين الإسلام كم إذا تاريخ الصومري تدوم دولة العدل وإن كانت كافرة. dowladdu iyo ummaddu hadday cadaalad ku dhisan tahay, cadaalad waxa laga wadaa gaalku waxa dhici karta cadaalad inuu sameeyo. hadhiin magaal ba cadaalad sameynaya way dhici kartaa xuquuqda isaga ka dhaxaysa iyo ummadda uu la wadaago inuu ku sameeyo.
وحلية مركز شيخاس دولة عدالة كل سنة ومدة أنا وكلا حنين ديكتاتورشيب نمضي إيه قمعنت إيه دلك إيه نبعت هذا إسكايل على سا ويدايم يعني عمر كذا إلى هو داريا وتزول دولة الظلم وإن كانت مسلمة دولة كل سنة أحد كل سنة قمعنت كل سنة ديكتاتورشيب نمضي كل سنة نبعت هذا إيه دبر جوينت ضدك ويزو شابوا لي هاي ضد مسلمين بها هذا هذا ظالم تهي وعدالة أتكفك تهي إن هذا مسلم تهي لبعضه إيه مشكلته كاجا ضايع ميس كاجا نراجع ميس لقاجنا باشين ماي لقاجنا باشين ماي إلهي وحليه تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به صدقوا ربط منه قنيس مسلم بان هيوسان دونان يلا يا ما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به عدالة قارئة سماوات يا أرض وحي كنت هاجين هو عدالة هدي لوايو أو ماشي الظلم يا إيه اعتماده يا بربرين يا نباتو يا ظلم الشعوب تلا ظلمية يا أمضها أما صاحبك يا قفك واحد من كده حيان الظلم ده ماشي خير ما يمنعه أمانة هدي لوايو بزنسكو حتى بركة ما يلانه نبينا عليه الصلاة والسلام سمح حسن حديثك صحيحها لبض قف مكة وحكلقتان خيار بيليهن إن يكون كلا نقدان أنت مدة شرع وشيء وحول النبي صلى الله عليه وسلم هدي سعد ديان عيبتا أي بيع ليهي أو يرون إسو شيغان أو ينان إس خيانين والله بركيني هدي خيانة ماده بين إسو شيغان ليس من شحابيه وحول النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما بيع عودي يا بيسنس قودي بركة إلهي كقاضي قوضب مهمة وي مركب ولا ليلا ماند ووحي الدنيا ذو كل سنة هايوي قوضب كلابات وحوي وأمانة ذوي مركب الأمانة والعدالة ولا بضع قوضب الله تبارك وتعالى وحليه وين أمري بل سيد الله سرع إياك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ربي وحي إذن فريا ورنتي آيات عجيبة وي وآياتها جامعة القرآن كوتشرة آياتها جامعة القرآن كوتشرة وي أنا حبك تجي نلاش بني آدم كوتشرة أدونك مركي شوقا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلهي تبارك وتعالى وحو إذن فريا أمانة ضدك إسكالها إن أثرتك سارتا أمانة إن تجودتان أمانة مفهوم كذي description كذو definition كذو وكواسع سنيهي مفهوم كأنه أهي صنع أهشيل لجودي بكريه صح وقيم أمانة كمل لكن هو كجودوين وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ضد هذا كلا صار يسان أما لا بقف كلا صار أما جاج جود أو مدة يعني حل محكمة ذات أنه هاي النقطة أما قف له يمد أو هجر له ديبتين نقطة أو نني حاسكيس أجروا ديبتين أما لا صاحب أجروا ديبتين أما ضد كلا درس أجروا ديبتين أن تحكموا بالعدل وهو ربي إذن فريا عدالة إن تسميسان عدالة إن إذن كتج ولبا إلهي وحليه إن الله نعم ما يعيدكم به وحن نعمله وناكسن وحن ربي إذن كوعدي محو ربي إنه كوعدي ربي وحي إنه كوعدي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وحو ربي إنه كوعدي إن أمانتنا لقوته عدالتنا لقى شقي وقفك عدالة الليمة وربي وعدي إلهي ووحي إلهي إنه كوانيه ويتبارك وتعالى وفي رسالة ولا ليه ما أنت قح أدونك كشرت إيه لباتوينك إيه كرايسس كا أنت بدكو هلاك سميس أنت مشكلة دعيس إيه ولي بدل المسلمين وجبضا حاجة أنت سكتم حاجة لا ينجح يستا ماشى لا ينجح يستا وحوي ومن عند أنفسكم سيد القرآن كشيء وإنجح حاجة إنه وحكي يمدون ظلم إنجح حاجة إنه كيمد وإنه إذا ظلمني إيه لباتين إسكو سميني إيه عدالة المسلمين تحقق هذا كتمدوي عقابت إلهي مركب ويمن يسار الله تبارك وتعالى isagoo tilmaamaya amaanadu qiimaha ay leedahay warathatu firdaws dadka jannatul firdaws dhaxlaya tilmaamaha ilaahay uu u sheegay ee suuratul mu'minuun bilowgeeda ilaahay ku sheegay dhowr ka tilmaamad waxa kamida ee dadka firdaws dhaxlaya ay leeyihiin walladina hum li amaanatihim wa ahdihim raa'un wa kuwa amaanadooda iyo ballanka ay galaan oo fiyo oo ka soo bax saas uu leeyahay Allah tabaaraka wa ta'ala صفات جنة الفردوس dadka dhaxlaya ay leeyihiin waxa kamid inay amaano leeyihiin ba kamid nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu isku xidhay iimaanka iyo amaanada qofkaan amaano lahayn iimaankiisa waxba ku jira ama iimaan ba male ama iimaankiisa waa daciif yani waa iimaan an yani waxa weeye ku xambaaraynin oo gaarsiisnayn heer oo amaanadii guto aan gaarsiisnayn
وإيمان ضعيف إلا إيمانك والدبر ويقفك وحرية وحرق قفك حرية حرق هدو جلع سنة هاي يعني نافكي لو دبر وشرية وقينية إيمانك هدو ويكي هاي إيمان ضعيف وياهي قفك حركوه قوسانية إيمانك سونا قوي أهين ومن أتكين إيمانك دبر لها ضعيفة أمانة دي بخيانة أمانة دي بقفك خيانة وحلي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم مؤمن وحل هذا قف ضدك أي كهلين أمان نفط هذا يا مالك هذا يا أمان كهلا قف نفط هذا ضدك أي أمان وجواين أو أني تايم ساعات كاستأيس ليهن قرم كدليا قف كاس مؤمن صحما قف ضدك أين أمن كاهين قرم كبر الغيسان يا قرم كدع يا قرم كشاب سيبه يا قرم كحذا يا قف أين ضدك أمن كاهين قف كاس مؤمن صحما قف كاس مؤمن إيمان كيسو حباك وشة والنبي صلى الله عليه وسلم وحلي مؤمنكم وقف ضدك أي أمن كهلان نفط هذا يا مالكو نفط هذا يا مالكو وين أنت بسوق النقطة ولا لا وين أنت بسوق النقطة والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر نوحل لهذا قف ذنبك كهاجرة يجفك يا خلاطك كتاج النبي عليه الصلاة والسلام أمانة لو جتوح الناشة جينا علامات أطهي إيمانك إنه ونكسين يقفك إيمانك وحليه النبي صلى الله عليه وسلم كمان في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بسند صحيح لا إيمان لمن لا أمانة له إيمان ما لقف أنا أمانة لهين قف أنا أمانة لهين وحبب لقوا أمين كرين قف أنا وحبب لقوا أمين كرين وحي اللي ديبا بس دافنية وحي اللي ديبا بس دافنية قف كهسي يعني وحوي إيمان ما لبلوه النبي عليه الصلاة والسلام وحول بو خيانية وحول لقوا أمينية ما جرت هدي بني آدم كأمانة ولا ليال هطيل لنتو يعني نلاش بني آدم كخلق الباقلية بيزنس كي بخلق القلية قف لا شركوبة يا مجرو ولا كلا عررية قف واحد يمين يا مجرو قف واحد كجذنا يا مجرو ولا كلا إردوبية دبعتها إيمانيس أمانة مرك waxaa ku dhisan nolosha dadka iyo businesskooda iyo noloshooda iyo dhaqaalahoodii baa ku dhisan is-aaminidoodii iyo wada noolaanshahoodii baa ku dhisan haddii la waayo amaanadii qof la noolaanayo qof wax deeminayo qof wax ka gadaya ma imanayo waa in marka amaanada aan ku dadaalo amaanada la ilaaliyo amaanadu walaalayaal waa dhaqanka dadkii wanaagsanaa ambiyadii ilaahay uu aaminay ee message-kii fariinta uu soo dhiibay inay dadka gaarsiiyaan waxa weeye wixii ugu qaalisanaa buu ilaahay ku aaminay dad la aaminay bay ahaan ambiyadii ilaahay waxa lagu aaminay shilimaad ma ahayn yani shilimaad way sahlan yihiin wax dad lagu aamino wax la isku aamino wixii ugu qaalisanaa waxyigii ilaahay waxyigii buu ilaahay ku aaminay tabaaraka wa tacaala bal nabi walba u fiirso suuratu shucaraa akhri nabiyullaahi nuux markuu qoomkiisii la hadlay wuxuu ku yidhi war ilaahay ka baqa innii lakum rasuulun amiin nabiyullaahi huud reecaad markuu kala hadlay wuxuu ku yidhi ilaahay baa ii soo kin diray ilaahay ka baqa innii lakum rasuulun amiin nabiyullaahi saalix markuu la hadlay reer thamud wuxuu ku yidhi rabbi baa ii soo kin diray war ilaahay ka baqa innii lakum rasuulun amiin ilaahay baa ii aaminay rabbi baa ii amaano ii soo dhiibay waana laygu aaminay nabiyullaahi luud sidoo kale nabiyullaahi shucayb sidoo kale sidaas darteed baab sifatul amaana waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ambiyadiisa uu ku sheegay ee ilaahay uu ku ammaanay amaanada walaalayaal cajaa'ibteeda waxayna tusinaya nabiyullaahi yuusuf markuu xidhnaa muddo dheer wixii lagu tuhmay iyo dacwadii lagu soo oogay inay been ahayd ay caddaatay wuxuu go'aansaday ninkii boqorka ahaa ee nabiyullaahi yuusuf waqtigiisa uu la noolaa inuu xil u dhiibo nebi yuusuf wuxuu codsaday si uu bulshada ugu adeego in loo dhiibo wasiirka maaliyadda wasiirka dhaqaalaha waayo waa meesha ugu xasaasan wey dowladda meelaha ugu xasaasan ee ugu halista badan waa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha wey nebi yuusuf wuxuu codsaday waayo nebi ilaahay buu ahaa shilin isdaba marin maayo waxba khayaanin maayo bulshadii buu hormarinaya dhaqaalihii buu waddanka dib ugu celinaya isagu shilina jeebka ku ridan maayo nebi yuusuf markuu codsanayay calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam in shaqadaa loo dhiibo wasiirka maaliyadda loo dhiibo qualificationkiisu muxuu ah resumegiisa muxuu ku qoray nabiyullaahi yuusuf qualificationkiisu wuxuu ahaa qaala jacalnii calaa khazaa'ini alard wasiirka maaliyadda iga dhig innii xafiidun calih labadaa qodob bay ahaayeen qualificationka nebi yuusuf uu haystay waxay ahaayeen innii xafiid ammaanaan leeahay waan ilaalinhayaa wixii lai dhiba shilin isma dabamarinay ammaanaan leeahay caliimun cilmi baan leehayoo waxaan aan ka shaqaynayana waan garanaya sida looga shaqeeyo waan garanaya walidaalikaba waxaa la yidhahdaa qof haddii la shaqaalaynayo waxaa muhima labadaa qodob in loo eego shaygan uu qabanaya aqoon ba u leeyahay kuma filla waxaa dhici karta inuu aqoon u leeyahay waa sax waa loo baahan yahay laakiin waxaa dhici karta aqoon inuu leeyahay
laakiin uu yahay qof aan waxba lagu aamini karin oo khaa'in oo wax walba isdaba marinaya waa mas'ale cajiib ah waxaa muhiim marka aqoonta la helo inay la socoto amaana inay la socoto labada qodob waa muhiim saasuu nabiyullaahi yuusuf amaanadu walaalayaal iyo kartidu waa waxyaabihii nabiyullaahi muusa ninkii saalixa ahaa markuu nabi muuse tagay ardu madyan ee uu ka tagay dhulkii masar ee uu ka cararay fircoon iyo dhibkiisii nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ninkii saalix ahaa ee u tagay ee soo dhoweeyey ee hoostigareeyey waxyaabihii lagu cileeyay ee nabi muuse shaqada loogu dhiibay 8 sano uu reerka xoolaha u dhaqayay ama 10 sano waxay ahayd inuu leeyahay nin karti leh oo waxaan qaban kara amaanana uu leeyahay labadii gabdhood mid kamid ayaa waxay ku tiri markay aabaheed ka codsanaysay inuu ninkan u shaqaaleeyo yaa abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin aaba waxay tii ninkan inoo shaqaale sababtoo gabadhu waxbay uga soo joogtay suu shaqada u qabanhayo inuuna iyagii faduulinin markuu xoolihii u waraabiyey oo gabdhihii uuna ku saqajaamin xoolihiina si fiican ugu waraabiyey oo si karti iyo xoog leh u waraabiyey gabadhu aabaheed marka waxay u goodbisay macluumaad xog daqiiqa baysiisay waxay ku tiri yaa abati istajir aaba ninkan inoo shaqaale sababtoo inna khayra gabadhu gabadh caqirada bay inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin qof aad ijaarato oo shaqaalaysato waxa ugu fiican qof karti leh hawshii qaban kara waa aqoonteedii leh al-amiin oo hadana amaanan amaanadu marka waxa weeye dawladaha ku dhisan qoyska iyo reerka ku dhisan ganacsiga ku dhisan nolosha oo dhan baa ku dhisan nolosha dhan ayaa ku dhisan nabigeena calayhi salaatu wasalaam khuluqa iyo sifaadkiisa waxaa ka mid ahaa in uu ahaa qof ammaano leh ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ammaano siiyey taasi waa midda keentay markii isagoo wiil yar oo dhalinyaro ah markii quraysh ay isku khilaaftay kacbada ay dhisayeen iyagoo gaalo ah xajarul aswadka qoladii dhigi lahayd markuu nabigu ku soo baxay ee u yimid calayhi salaatu wasalaam waatay kulligood qabaa'ilkiisii haystay oo dhan ay ku aamineen oo dhaheen muxuu ninkii amiinka ahaa ee saadiqa ahaa in qofna u eexanaynin baa inoo yimid isagaan garta u dhiiban nabiguna waa ku kala xukumay dhagaxa qaadidiisa qaab ay ku wada qanceen oo ah in mara ama shay weyn dhagaxa lagu rido qolo walba ay dhinac qabato khalaas qaabkaasuu nabigu ku kala xukumay calayhi salaatu wasalaam qolo walba inayna markaa ay khalaas ay xaqeeda ka hesho dhagaxa qaadidiisa qolana ayna dhihin waana laga eexday qolana ayna dhihin looma dhanna qolana ayna hadal iyo nunnuu keenin saasuu nabigu ku kala xukumay يعني لو مرة نظن يعني وين ما الله بني آدم كو يعني وحبها كتير تذكر سوالف مركي قيلون هيان أنت دواقيان وحبها كتير ودع كرت لقى يابين عادة إنه نقطين صح هين أو إنه قبضت هي لكن تذكر وحبها طبعا هيان وين مركي عدالة لها عدالة بعد تذكر دغلا ولا ليان أمانة دغلا تذكر هذا الكيسان حول لمو ذا جالسين كرو قفل بوزير من نقن كرو قفل ببرلمان من نقن كرو لكن هدي عدالة لها قفل بهالكاسي وحول بوجو تجيان جورجي سيوجو تجيان طريقة سو خير والبكوه ليه طريقة سوى حرب بقول إيمانها وين إلهي كبغنا تبارك وتعالى الله عز وجل وين إنه كبغنا أولي بدك أقانت شاجنا يا كام عضها كبحي مستواها لما مركز ضلك حلو قديم وطن كودي يدك كودي أو ربع قرن قح كتير أي كل غضان وطن كي أو يحل قبتان وين إلهي كبغنا تبارك وتعالى وين مسؤولية إلهيان وإن أوقف الباب إلهي كبغى عز وجل ومسؤولية ضدك تبع على سن قح اللي بهتذا كتير حقوق ضد وسكيل عليه حقوق ضد وين وسكيل عليه أرنتاس أرن مهمة وي نبينا عليه الصلاة والسلام عد أمانة دي سيداس يكون مغتو أنا مدة خديجة وحرتها النبي عليه الصلاة والسلام مركي جورسنا يسأ بزنس كذا وكشقينا وحيكون عطستين وجورسة أمانة إيه كرتبة إيه أمانة أيكو أرتها أو شيلن أنا إزدبا مرينا هنباه أو بزنس كذا إلهي وقبل عليه أو برر بزنس كذا أمانة يكون دورت النبي عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام أمانة دي سو حيقاد هير شنتي وأهل الياب وحيقاد أمانة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة مركو نبيو هجرون هي مكة وكبحيي رجي صحابة كلا جابيي حد حدي قار لاي عذابي نبي قدبي وحول بكو سميي دعوة كف ذين كرواي مركو كتجي علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويل يروينا ذيركها أيولا دردارمي وحكوري ماشي أن سيحان شري سيحو مركو واجو كوبريو أما نوين كي أن هيوك واسدتك لها أوجي وأنا منك قال هذا هيوجو ورجي النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سلبي أيوه حكوري أمانة ذو ديوعد واي مسلم وحما خيان إنه ما أنت إن بدنا مسلمين وحي عادك اللي تنوى قال هذا سو قال ما سبحان الله ورقال كسو دين تبى كسو قال يا هذا قضية بخائنته يا يرجال بالله خيانة يا كوير النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وحكوسه إسلامنا هي بس أمانة دي سماهي أخلاق ذي إلهي كو أمانة سو أمانة ما هي سو أمانة ما وحنا ليابي شيخ عريفي وشيخ سعودي هنا
ayaa waxaan dhageystay kilib uu kaga sheekaynayo muxuu ahaa qiso dhacday oo wadamada galbeedka mid ma garanayo wadan uu ahaa ka dhacday wuxuu leeyahay nin sheekha oo imaam ah masaajid imaamka wadamada galbeedka ayaa bas soo koray baskana nin gaala baa wada muuna haynin baska kaarkii baska lacagtiisa lagu xoqi lahaa muuna wadanin laakiin kaash buu sheekhu watay lacag buu u dhiibay ninkii gaalka ahaa balance muxuu ahaa driverka ahaa balansigii buu soo celiyey balansigii markuu sheekha kursigiisa fadhiistay oo uu tirsaday wuxuu arkay lacag dheeraad oo la socota sheekhu wuxuu is yidhi dib buu uga sheekeeyey balansigan lagugu khaldamay ee laguu soo celiyey ma u celisaa ninka markaasaan is yidhi waa gaala iska daa waa gaala iska dhaaf haddana markaasaan is yidhi ma u celisaa markaasaan is yidhi war maya masaakiinta si maya masaajidka kitaab ugu gal maya sidaa yacni markuu sidiisu wadwaday baskii wuxuu gaadhay destinationka meesha ugu dambeysay ee lagu degi lahaa markaasaa ilaahay sheekha qalbigiisa wuxuu geliyay inaynan marnaba wax kastuu yahay khayaano fiicnayn lacagtii buu celiyey wuxuu ku yidhi niyo waad khaldantay lacagtii balansigeedii soo celisay khalad baa la socday lacagta dheeraadka adaa leh wuxuu ku yidhi maana khaldamin waan ku imtixaanayo waan ku tijaabinayay dadka muslimiinta waxaan in badan maqalla ammaanay leeyihiin waxaanan ogahay inaad tahay imaam fursad baan kaa helay laakiin waad baastay imtixaanka waad ku baastay kas baan balansiga aan kugu badiyey oon lacag dheeraada kuu siiyey imijka iyo fikradda uu qaadan lahaa gaalka hadduu sheekhaasi la degi lahaa ka warran lacagtaas subxaan allah masale khatara bay noqon lahay masale khatar ayay noqon lahay marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam nimankii waxaad ogeyd ku sameeyey ayuu cadaalad u sameeyey ilaahay wuxuu uhi walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu cadaalad samee cadaalad samee yacni waxa weeye qof kasta cadaalad u samee waalidka aabbaha dad kale carruurtaada xaaskaaga dadka ilaahay cadaalad kula dhaqan ammaanadu walaalayaal kuma koobna wadaa'icda yacni shilin laguu dhiibay iyo alaab laguu dhiibay waa waxyaabaha ammaanada ugu muhiimsan laakiin taa keliya kuma koobna ammaanadu way ka guda ballaaran tahay wixii ilaahay ina saaray ayaa soo gelaya ee rabbi inoo dhiibay ee inagu ammaanaystay oo ah takaaliifta sharciga ee rabbi inaga raba inaan la nimaadno waxaa soo gelaya ammaanadii cibaadaadkaasaa soo gelaya waxaa soo gelaya awlaadda ilaahay ina siiyey iyo reerku iyo faamiligu waa ammaano wey waxaa la rabaa sidii sharcigu sheegay inaan ugu shaqayno oo aan ka dadaalno xuquuqdooda carruurteenna iyo reeraheenna iyo xaasaskeenna xuquuqdooda aan iska ilaalino sababtoo ammaano wey shaqada macallinnimadu waa ammaano wey ardaygan macallinka loo keenayo ee loogu keenay inuu waxbaro ee uu lacagta ku qaadanayo ee timeka dhan uu ku luminayo ammaano wey macallinka qoortiisa saaran waxaa laga rabaa inuu macallinku ka dadaalo ardaygaas siduu wax u bari lahaa iyo akhlaaqdiisa siduu sare ugu qaadi lahaa waxa ugu wanaagsanna uu ugu sheegi lahaa cirdiga iyo dignitiga qofku sharafta qofku uu leeyahay ammaano wey inaad marka dhaliisho ood wax ka sheegto mamnuuc wey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac waa ku lahaa dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinnuba xaaraan bay idinka yihiin inaad meel kaga dhacdaan saasuu lehy nabigu calayhi salaatu wasalaam xoolaha ilaahay ina siiye ammaano wey ilaahay baa inagu asturay ilaahay baa inagu nooleeyey in lagu israafo lagu xadgudbo lama rabo qaad iyo sigaar iyo drugs iyo qashin in lagu cuno lama rabo imisaa u dhimanaysa xoolahaas ilaahay ku siiye tabaaraka watacaala iyo nicmada qaaliga waxaa la rabaa ammaanadaas iyo waajibaadkeeda in iyadana laga soo baxo marka horena meel fiican oo xalaala laga shaqaysto marka dambena meel wanaagsan lagu bixiyo shaqada iyo wadiifada iyo ofiska qofku ka shaqaynhayo macallin ha noqdo muxuaha secretary ha noqdo xildhibaan ha noqdo mas-uuli wasiir ha noqdo business ha noqdo shaqada uu dadka ummadda u hayo qofkuna iyo wadiifadiisuna ammaano wey timekeeda inuu ilaaliyo baajkeeda inuu ilaaliyo shaqadeeda inuu ilaaliyo sida ugu wanaagsan ee ugu fiican qofku inuu u guto arrin waajiba wey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad iyo aad ayuu arrimahaasoo dhan uga hadlay ammaanadu walaalayaal waxaa ka mid oo ugu muhiimsan waxyaabaha sirta waxyaabaha sirta ee la isku qarsado waa ammaanooyinka ugu qaalisan wey nabigu sala alla alay slam wuxuu leeyahay qofku hadduu qof u sheekeeyo oo qofkii sheekeynaya dhinacyada eego waa arrintaasi waa sir qofku hadduu wax kuu sheego dhinaca fiiriyo sir wey macnaheedu waa ilaali iska ilaali ilaali weeye ammaanadaas oo iska jir nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay almajaalisu bilamaan fadhiyada dadku fadhiyaan ammaano wey wixii fadhiga lagaga sheekaystay ee dad khaas oo saaxiibaa ku sheekaysteen bannaanka in lala wareega maaha waa in aad iyo aad laysaga ilaaliya aad iyo aad in laysaga ilaaliyo wey adaa lamaana walaalayaal waxay sabab u tahay jannada gelitaankeeda nabigeenu sala allah alay slam xadiidkan aan ku gebagabaynaynaa waa xadiid runtii cajiiba wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam idmanuu lii sittan min anfusikum ii ballan qaada 6 arrimood adman lakum aljanna waxaan ana ballan idiin qaaday ilahay inuu janno idin geynayo 6 arrimood ka soo baxa waxaa ka mid ah 6 arrimood usduquu idaa xadadtum run sheega haddaad sheekaynaysaan been ha sheegina qodobka labaad waxa weeye waa awfuu idaa wacadtum haddaad ballan qaadaanna ka soo baxa ballantaas ha ka bixina ballanta qodobka saddexaad waa adduu idaa tumintum
haddii ammaano laydiin dhiibtana ammaanadii ka soo baxo ammaanadii guta qodobka afraadi waxa weeye waxfaduu furuujakum zina iska ilaaliyo farjigiina dhowra qodobka shanaadi waqaduu absaarakum indhihiinana xaaraan ka ilaaliya qodobka lixaadi waxa weeye wakufuu aydiyakum gacmihiinana qof bini aadan inaad ku dhibtaan oo dhiig xaaraan aad ku daadisaan gacantiinana dhowra buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiina ilaashada waa lix arrimood walaalayaal aad iyo aad khatar u ah ilaahay waxaan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala lixdaa arrimood inuu ina waafajiyo masaalixdeenna adduunya mid aakharaba inuu ina waafajiyo saluu wasallimuu calaa man amarakum allahu bisalaati wasalaamu calayh إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اهدنا بهداك واغننا بفضلك عمن سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأقم الصلاة